burco iyo gobolka Togdheer waxaan si fiican uga dayn xilli roobaadkii dayrta waana dhamaadka dayr aan si fiican loogu doogsan waxaanu helnay dhawaaqa biyo yari baahsan oo ka jirta deegaano hoos yimaada gobolka Togdheer markan halbeega safarkaygu waa deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer oo ka bilaabmaya tuulada cadow yurure burca kadib waxaanu soo dhaafnay deegaanada cadow yurure cali saahid bali samatar masalaha good xangeeyada bilcil weyso iyo hadda aanu taaganahay waraabeeye waana barbilowga sahanka socodkayaga deegaanada aanu soo dhaafnay abaartu waxay u saamaysay deegaan ahaan duunya ahaan iyo dad ahaanba badankoodu waxay noqdeen kuwa u hayaamay meel baad iyo biyo ka roon leh halkani waxa weeyaan degmada waraabeeye waa degmo magaalo aad u qadiimi ah oo ku taala bartamaha Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer xadka inta u jirtay inta burco jirto waxa weeye u kala badh waxa ku nool dad aad u fara badan oo reer baadiya waa meesha ugu xoolo badan deegaan ahaan markaynu degmooyinka burco eegno geel iyo ari iyo riyo inta way ku nool yihiin waqtiyo badan oo imika barwaaqo hore noo soo maray laakiin imika 3 sanadood u dambeeyay waxaad moodaa gugii iyo dayrtii bay nagu yaraadeen markii gugii iyo dayrtii bay yaraadeen oo daaqina yaraaday xoolihii waxa ku dhacay weyd baa ku dhacday waxa ku dhacday hadii badankeeda leeyahay iminka dayrtan ugu dambeysay waxaan ahaynba biyihi oo nagu yar waxaanu aad iyo aad sanadka ugu baahanahay gurmadka xagga biyaha oo dad iyo xoolaba biyo way ku yeereen adigu way jiraan dayrtii wadin baraga wax ka galgaleen laakiin in badan oo baraga ka badan kamidii way mareen degmada waraabeeye waxay ka baad iyo biyo roon tahay deegaano aanu soo dhaafnay iyo kuwa kale aanu gaari doono balse waxa jira culays kaga imanaya dadka ku soo hayaamay iyo dadkii hore u deganaa deegaanka magaaladan in biyo way gashay laakiin dadkii oo dhan baa isugu soo guuray waa laga laacay way marantay magaaladu way biyo laadahay waxaan madaxda ka codsanaynaa waxaan ilaahay ka baryaynaa in ilaahay roob noo shubo baahida waxa lagu baahay baxaa wixii ilaahay keenay madaxda iyagana waxaan ka codsanaynaa inay xoolihii waa kuwaasi itaalkoodii waa aragtaane in u soo gurmataanoo wax walba caalamka laga doontaa wixii haysan idinku keentaan deegaanka talabuur iska daa adduunye dadkii waxay leeyihiin waxay dhuunta ku qooyaan dhammaan deegaanadan marnay waxay dadku isaga marag furayeen labahaanshaha xaaladda abaareed ee saamaysay dad iyo dunyo deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer kuwaasaa noo biyaa kuwa lacagtana laga siiyo biyo la'aan baanu ka hadlanay tan ugu darani waa biyo guurtida iyo xildhibaankaba waxaanu ka codsanaynaa biyo ka codsanaynaa biyo halkan dadku horta waa nabad qaba alxamdulillaah rabbil caalamiin abaara halisa ayaa ka jira 16 magaalada xukunta 16 ka magaalo meel ay biyo ku jiraan ma jiro abaar waaqica oo halisa baa dhacday dadka waxa uu caawa u dhintay waa biyo la'aan hadii la helaba oo galbeedkaas oo roobku ku dambeeyaba wax laga soo qaataa foostadu waa 35 kun waa hadii la helo dhibaato aad u badan oo xagga biyo la'aanta oo sarfeeya oo aan kala had lahayn weeye marka hore dadku waxay soo gurman jireen markii magaalada maran tahay magaalooyinka kale ayaa wax laga soo qaadan jiray oo dadka caawin jiray maanta way simantay marka xukuumadda iyo Soomaaliland ilaa madaxweyne ilaa wasiir ilaa noocay u tahay xukuumaddu qayb kasta ummadda maanta dhibaato badan bay haysataa dadku maanta dhiig joojin buu u baahan yahay waxa uu dhintaa waa biyo xukuumadda waxaan ka codsanaynaa ilaahay uun horta baahi qaadi kara cid kale oo baahi qaadi kartaa ma jirto xukuumadda Soomaaliland oo madaxweynuhu u horeeyo waxaanu ka codsanaynaa inay dadka wixii ay soo gaarsiin karaan soo gaarsiiyaan oo si hagar la'aan ay u soo gaarsiiyaan dhammaantood waxay sugayaan gargaarka ahaaday xagga alle balse waxay dirayaan baaq bulsho iyo mid dawladeed si ay u badbaadiyaan nafa iyo xoolo wixii nool maxamed wardi warbaahinta qaranka Soomaaliland deegaanada hoos yimaada gobolkaasi Togdheer